sida ay Kalson TV u xaqiijiyeen dadka ku nool deegaanka Qoryaale ee hoostaga degmada Jaralaaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa halkaa lagu arkay dhacdo cusub oo dadkii arkay ay aad uga argagaxeen. Dhacdadan ayaa ahayd mid dadka deegaanka qaarkood ay arkeen wax ka kooban guryo dabaqyo ah, masaajidyo iyo weliba geedo una guurguuraya dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga iskuna xira cirka iyo dhulka. dhacdadan oo ah mid cusub aadna looga hadalhayo guud ahaan gobolka Hiiraan ayaan la ogeyn in ay tahay waxa dadka ay arkeen mucjisada rabbaani ah ama ay tahay in ay arkeen dadkaasi dayax gacmeed. dadka ayaa xusay inay isku dayeen in ay kor tagaan wixii ay arkeen ee mucjisada ay ku tilmaameen, balse markii dambe ay u suurageli waysay in ay kor tagaan ayna u dhammaadeen wixii ay arkayeen dhanka badda. si aan wax badan dhacdada uga ogaan waxay Kalson TV ay la hadashay Aamin Cali Makaraan oo ka mid ah dadka jooga deegaanka Qoryaale indhihiisana ku arkay mucjisadaasi. aniga horta Aamin Cali Makaraan leeyahay ma fahanti waa gartay tuulada Qoryaale degmada Jaralaaqsi 20 kiiloomitir u jirta jooga haye niga roobka 12 saac iyo barayeen xilligu dacay roobka markuu bayooday waxaa kulley dadka banaanka jooga waxaa yidhi magaalana kor guuraysa war magaalana kor guura war magaalana kor guura wixii dadkii banaankii joogay markuu ceylkii dhowrka yidhi oo magaaladii tuuladii la faaruujiyey wixii loo dilay baa waa wada fiirinay guryo iyo waxaa noo soo baxay iyo maraayado iyo dabaqyo dhisan geeduhu ku dhex yaallaan oo camiran cambaha iyo baararka iyo adigu waxyaabo badan ku yaallaan waa gartay wixii ummadii dad quraanka u ka dhawaaday oo salaada u dadbisay dadna wixii wuxuu yidhi waxaana la aadinaa maaragta soo arkayna haye la yidhi wixii mugii lagu dhow yaho marka meeshii lagu dhow yahana wixii dhinaca oo koonfurta waqooyi iyo koonfur ay kala socdeen waqooyi waa ka socdeen koonfurna waa u socday waa gartay dhinacii koonfureed badda ka galaya markaas shoocaca ku baxsaday waxa weli la arka ma ahayn waa laakiin maqaadir ilaahay oo cirka iyo dhulka aasatay ahayd ummadda Qoryaale joogto dhana kurteeda aa aragtay waxaasu markaa xaqiiqo waaye amuur ilaahay watana waaye cid bini aadan oo hadda maaragtay aragtadaas iyo annagu tusaalahaas bisaaba la ekay ilaahayna haddana markaan u dhawaana haddana ilaahayna hataaba wixii maaragtay waa gartay dabcan adigu waxaad tahay nin oday ah xogtiisana lagu kalsoonaan karo marka ma aragtay adigu waxa oo indhahaada ma saartay waxa ugu dambeeya masaajidku waxa waaye waa ugu dambeeyey dad badan oo maaragtay culamo iyo caamaha wiilgayna u jarfanay wuxuu cirkiga dhulkana waa istaasaan dabaqyo camal oo dhishan waaye dhinaca koonfurta baday ka haastaan dhinaca kalena waa ka socdaan waqooyiga. waa gartay marka maxaad aragtay adigu ma masjid oo keliya ayaad aragtay mise wax badan oo guura ayaa aragtay adigu waa guura wax badan oo guuraha arkay aniga indhaha saaray oo guuraha indhaha saaray xaqiiqo waa taas marka dhinaca waqooyiga wuxuu kasoo guureen banaanka mugga iskugu tagnane dadna qur-aanka rabbiga ka agdhawaaday dadna meeshii u duday dadaaba haatee maaragtay aaba carree oo xalay duurka ku carree marka waatee waxaad arkeen weli wax la arka haatee maaha waxaas haye markii aad tagteen oo aad ku dhawaateen wixii ma soo wada aragteen nibaqsi wuxuu sideedaba waxa waaye cirka marka aad fiirido wuxuu waa sharaxan yihin in ku dhow yihiinna waa uqotaa marka sii socotiin wixii waa kaasii socdaan dadka ugu horreeyey markii ay naga dhaqaaqeen wixii anaguna ka daba dudayno oo maaragtay waxaa soo wada arka waana degan yaha aan isleynaa dhinacii koonfuro oo badda uga furneeday waa miraqsi waxa ma dhulka ayay inay soo degeen oo aad aragteen mase cirka oo keliya ayaad ku aragteen idinku مثلا هذا إشهاد المبتل أكيد ضوء مركي إشهاد حركة ماشي هو دار أكيد ضوء يشكلوا ما كده وحنا ضوء كانوا غير كانوا واحد سادال ساتو أطيان واحد مركا وحوي وقولي عريش كم جريا نجح يوه قولي نجح أو درقيا أو استوى وهو البلد marka leerar miyay wateen oo ma ifaayeen mase
maya leerma wada laakiin guryaha dhowr rinjiya kala leeyihin marka masaajidka ugu dambeeyey iyo buuro dheerdheera ugu dambeeyey waxa waa buuraha geeday leeyihiin masaajidku waxa waa geedaha dhex yaalla albaabadiisu waa u furan yihiin dhinacana baday ka haasaniya marka saadaashaas wax ilaahay qadar ilaahay wax ka socda waa maya salaada maaha shaxalay maqribka horteedii waa shalgal xilliga roobku dacay waa roobkaasu dabaylo badanoo watay geedi waa isku dhacaya geedku waa lulna hata geedka mugaa maaragtay oo xagga kaa jooga xaggaan ugu soo dhacaa marka sidaasaa horta marka hore uu roobka ku bilaabo maxaa marka adinka istiraheen wax noocaas oo kaleana horey mau arki jirteen maya qorax madoobaata waa aragnay adiga bil madoobaata waa aragnay laakiin guryo camiran oo guur ah oo maaragtay geedo ku yaalaan oo masaajida ku yaalaan oo dabaqayaa anaka weli ma arag xubno ka mid ah maamulka degmada Jalalaqsi oo iyana dhankooda aan la hadalnay ayaa warkan Kalsan TV u xaqiijiyay waxayna sheegeen in waxa dadka deegaanka ay arkeen lagu tilmaami karo mucjiso. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.